Danaynta iyo daryeelka faraha badan ee qofkaad jeceshahay wuxuu dareensiinayaa inuu yahay cidda kaliya ee aad u baahan tahay. Sidaa darteed wuxuu ku arkayaa dhibaatada kaliya ee noloshiisa haysata una ka dhaqaaqi la'yahay. Marka waxaan kugula talin lahaa inaad qof waliba aad daryeesho ama danayso intuu ku daryeelo ama ku daneeyo. Ogsoonow oo maskaxda ku hay ubaxa biyaha badan waa ku qalalaa. Si kastood u malaysa in dhammaan kalgacal iyo samo ku hayaan, waxaa hubaal ah inuu jiro mid sugaya inuu ku arko adoo gebi ka lusha si uu gunta kugu hubsado. Asbaabaha muunada iyo milgaha lagu gaaro waxaa ka mid ah hadal yaraanta. Hababka naftaada loo qurxiyana waxaa ugu muhiimsan qalbi nadiif ah iyo waji furan. Ogowna Soomaalidu waa tan dhahda waji furan baa la galaaye albaab furan lama galo. Marka ku dadaal inaad ahaato mid kal saafi leh, waji furan oo hadal yar. Waxaad ogaataa in murugada iyo dhibka ku soo gaara 90% uu noqonayo darajada aad la ekaysiisid iyo dareenka taban ee kaa soo gaaraya oo aad qirtid jiritaankiisa, halka lagaaga baahnaa kaliya inaad talada iyo maamulka weynaha sugtid. Fikir iyo mushkiladna aadan isku abuurin. Dabeecadaha la yaab kale ee bini'aadamka waxaa ka mid ah inay waxaad wanaag lahaan jirtay u baabi'iyaan kaliya xumaan aad hal maalin geystid. Ha noqon sida laamaha baarka geedaha oo kale, dabaysha yar iyo tan weynba ay leelejiyaan. Ahow sida jirida geedka oo kale oo aysan neecawdu wax yeelin. Weligaa been ha sheegin, hana rumaysan qof kugu been abuurtay adoo nool. Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.